السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هابينimo wanaagsan dhageystayaal meel walba aad ka joogtaan daafaha caalamka. wararka daljirca oo ugu door karoon waxa kamid ah natiijooyin hordhaca oo ka soo baxaya doorashada ka dhacday Puntland. dagaal beeleed khasaare geystay oo ka dhacay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. dowladda federaalka Soomaaliya oo soo dhaweysay bixinta taageerada miisaaniyadeed ee midowga Yurub. golaha xildhibaanada deegaanka Soomaalida iyo jaamacadda Jigjiga oo kala saxeexday heshiis iskaashi oo dhaxmari doona munaasabad lagu dhiirigelinayo ciidanka booliska ee ka soo dhalaalay waajibaadkoodii shaqo ee loo baahnaa ayaa ka qabsoomay kulliyadda booliska ee deegaanka Soomaalida. intaasi waxay ahaayeen wararkeena ugu door karoon waxaana sahlay Sambank. soo gudbinta warka fiidnimo ee daljir waxa fududeeyay Sombank ugu imo adeegyo banki oo dhameystiran hufnaan iyo damaanad qaad adduunka oo dhan. Sombank samaan sareyn iyo shaqo saafi ah. Sombank hadda iyo warkii oo faahfaahsan waxa uu idin ka imanayaa stuudiyaha daljir ee magaalada Jigjiga. waxa idin soo jeedinaya anigoo ah Jamarti Yaxye. gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Puntland Cabdirasaaq Axmed Siciid ayaa ka warbixiyay halka ay marayso tirinta codadka hordhaca ah ee degmooyinka Puntland. gudoomiyaha ayaa shaaciyay natiijada hordhaca ah ee codadka ay kala heleen ururada u tartamaya codka. waxaan rabaa galabta inaan idin la wadaago briefingkii ama warbixintii maanta sidaan xalay halka ka sheegay si nabadgelyo ah bay doorashadii xalay noogu soo gabagabowday. waxaan rabaa inaan idin la wadaago hadda in lagu guuleystay oo ay koox walba ama tiim walba oo doorashada ka shaqaynayay ay ku laabteen degmo doorashadoodii ama degmadii doorashada gaar ahaan xarunta Tiibeg halkaas oo heer degmo laga dhawaaqayo si joogto ah na aad ula socoteen natiijada hordhaca ee heer degmo ee doorashada golayaasha deegaanka Puntland. waxa ilaa iyo hadda si toos ah loo faafiyay natiijada hordhaca 10 degmo 23 degmo oo kalena gacanta lagu 20 degmo oo kalena gacanta lagu hayaa. ilaa caawa waxa dhamaystirmi doonta in dhammaan la dhamaystiro natiijada hordhaca ee degmooyinka. degmo kasta marka la diyaariyo shaxda oo ay dhamaystiranto dhammaan goobaheed u soo xeroodaan sidaad arkayseen natiijadaas waxay ka timaadaa dhammaan goobaha degmadaas markay soo xoroodaan in gudoomiyaha degmada ee guddiga doorashooyinku uu si public ah ama si furan media hortooda uga dhawaaqo sida inta kursi oo la kala helay iyo inta cod oo la kala helay. ilaa hadda 10 degmo ayaa dhamaystirmay inta kalena waa dhamaystirmayaan ilaa caawa. dagaal u dhaxeeyay laba maleeshiyo beeleed ayaa maanta ka dhacay xaafadda Buundaweyn ee ka tirsan magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. labada maleeshiyo beeleed ayaa isku haystay dhul ku yaala xaafadaas oo horey u xukuntay maxkamadda madaniga ee gobolka Hiiraan. waxaana dagaalkaas la xaqiijiyay inuu ku dhintay hal ruux halka 3 kalena ay ku dhaawacmeen. wararka ayaa waxa intaas ku darayaan inay weli xiisad ka taagan tahay goobihii ay ku dagaalameen labada maleeshiyo beeleed oo u dhow suuqa khudaarta ee magaalada Beledweyne. iyada oo weli laamaha amniga iyo maamulka degmada Beledweyne aanay ka hadal. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa soo dhaweysay taageero miisaaniyadeed oo midowga Yurub ku caawinaya dowladda federaalka Soomaaliya. taageeradaas oo ah ku kabis miisaaniyadeed. qoraal uu soo dhigay bartiisa rasmiga ee Twitter-ka ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa waxa uu sheegay bixinta miisaaniyadda midowga Yurub inay tahay mid ku soo beegantay waqtigeedii. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegay in lacagtan loo adeegsan doono qaab hufan si loo gaaro hadafkii loogu talagalay. dhankiisa wasiirka maaliyadda dalka Soomaaliya ayaa sheegay in bixinta lacagtan ay sii xoojin doonto dib u habeynta iyo mudnaanta siyaasadeed ee dowladda federaalka Soomaaliya. heshiis ay kala saxeexdeen golaha xildhibaanada deegaanka Soomaalida iyo jaamacadda Jigjiga ee deegaanka Soomaalida ayaa socon doona muddo 4 sanadood ah. heshiiskan ayay ku sheegeen inuu yahay mid
mid ah isaga kaashan doonaan dhinacyada daraasadda kobcinta awoodda qaab dhismeedka xafiisyada iyo waafaqsanaanta hanaanka shaqo. Haddaba heshiiskan ayaa waxaa kala saxeexay afhayeenka golaha baarlamaanka deegaanka Soomaalida Marwo Ayaan, madaxweynaha jaamacadda Jigjiga University Dr. Bashiir Cabdullaahi iyo mas'uuliyiin kale oo ka kala socday golaha xildhibaanada iyo jaamacadda Jigjiga. Munaasabad lagu dhiirigelinayay ciidanka booliska ee deegaanka Soomaalida ee sidii loo baahnaa uga soo dhalaalay waajibaadkoodii shaqo ayaa ka dhacay komishinka booliska deegaanka Soomaalida. Munaasabadan dhiirigelinta ayaa waxaa ka soo qayb galay komishineerka guud ee booliska deegaanka Soomaalida Sareeye Guud Cabdi Cali Siyaad iyo saraakiil kale. Haddaba komishinka booliska Sareeye Guud Cabdi Cali Siyaad oo goobtaas munaasabada kula hadlay ciidanka ayaa sheegay inay farxad weyn u tahay inuu ciidankiisa dhiirigeliyo gudashada waajibaadka shaqo, waxaana kale arrintaas ku daray inay horseedi doonto dhiiranaan. Kama dambeystii komishineerka ayaa ciidanka kula dardaarmay inay sii laba jibaaraan waajibaadkooda shaqo ee u hayaan bulshada, sidoo kalena ilaaliyaan sarreynta sharciga iyo wada shaqaynta hay'adaha amniga deegaanka Soomaalida iyo kuwa dowladda federaalka Itoobiya. Dhagaystayaal, waxaa inta noogu dhow wararkeena caawa ee stuudiyaha Daljir ee magaalada Jigjiga idinka imaanayay.